halkan waxa aan ku qabanayaa shiraaid shirarka jiraayada qaban jiray wuxuu kaga daway karo maanta waxa aaday ahaan jirtay inaan ku bilaabo bisinka inaan ku dhameeyo salaga nabiga laakiin maanta uu ka duwan yahay sababtoo ah quraanka kariimka waxa ku jirta aayad suurad quraan oo leeyahay suuratu bara ama suuratu faatiha oo aan lahayn bisin sabab rasuulka aayadda marka laga warramo suurada laga warramayo waxa la yiraahdaa waxyaabaha quraanka waxyaabaha looga daayay bisinka looga reebay waxa lagu sheegaa xilligii soo degtay oo xilli adag oo munaafiqiinta iyo muuminiinta la kala saarayay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu ka soo noqday Tabuuk taasoo taa food baynu galay food qasaare naqli jiray ayaa jiray baa xiliyada food qasaare oo 69kii ay Soomaalidu ka sheekan jirtay ayaan hore u maqli jiray waxaan u malaynayaa inuu maanta ka hor aanu food qasaare xiliyada laakiin haddaan nahay anagu taageerayaasha xisbiga wadani food qasaaraha dhacay kuma aan qasaarin sababta aan ugu qasaarin waxa weeye waxaanu ogaanay oo aanu baranay cadawga iyaga iyo gacalka iyaga kala baranay waxaanu baranay jeegaanta waxay tahay baanu baranay oo aan si fiican u fahanay waxaanu baranay in cadawga iyo gacal baa jira cadawga wuxuu sheegayaa inuu yahay jeegaanta laakiin aanu ahayn cadawgu laasaanood iyo meesha lagu yiraahdo boorame iyo saylac iyo meelaha kale ee dadku yaqaanay in cadow joogo cadawga iyagu inaanu joogin gacalkaygu joogaan baranay kaas waa ka inta waxaan ku darayaa malayn maayo inay dunida ka dhacayso ama Soomaaliland soo marayso wax ka xun dibna hore ugama dhicin dibna uga dhici mayso dawladdii Axmed Siinaaye ee la soo martay mid ka xumi inay horena u dhacday dibna u dhacayso wallahi inaan u malaynay wax kastoo yimaada way ka sahlayeen taasna waa taa maanta la codeynayay waxaan xasuustaa anigu Faarax Umar baan ka codeeyay waxaan codeynay dad reer Burca oo aan dirisnaay waxaan ku dhaaranayay inay musnaabayeen markii ay codeynayeen oo ay ku musnaabayeen warnimanka rida imrigay ismaan oo qof bilaadan oo Ilaahay abuurtay waa shahaadanaya يا قف الشهادة أو كراي ولا لقي أما يدرس يسوي العلوية ولا قلا ما أنت كلو ثانا ونبرة أنت واحد قدرية أو يرفع وها حاران يبوب يأفضل وحن أفكر اللي بشيء كريم كسو أيها لو عمام ضي مصبح عليك اللي هذا مصبح عمره حرام بكسبح يسوي وقتين عمري حرام بكشقيسني إلى يوم أنتم أسرين إلى يوم أنتم أسرين سوق على يوشين استيتك يا هيدي إلى ما أنت وحبوش قيسني واحد هيد حرام واحد يدي شيء حرام تاموسة واحد سويدين اللي انتبهوا حرام تكفر يدونا كرسيك سقوا كرسي مدحولياش كوري كقلي قدر هذا فرابضن سيد عبد الرحمن أحمد علي سقوا الله قلي دقال فرابضن عبد الرحمن أحمد علي دولتي سي والله بس هالنضوض كلية أو حل أو دستور كسيه كفر دي كرسيكا يضو أن لا سنافر بلاد أودي وتكتي سيدابو حكومة دونا أو مصبح الدولة قلنا مدحوين قلنا قندنا تدكي نوعاها سيدابو حكومة دونا تدكي وبابي عدكودي حركة عد أو بريري waxa ogtiin calaacas iyo wixii ay calaacas waxay imaka ay bilowday wixii ay taqaanay oo ahayd xarqi iyo aqoonsashadii iyo xirxirkii ugu horeeyay qaar ay arbadada ka xidhaan iyo qaar ay suuq ka xidhaan waa maqlaysan si degdeg ah iyadoo aan hal habeen xaaraanta ku fadhiin oo ku boobay kursiga ayuu bilaabay hawshiisii waxaanu leenahay oo intaan ku daraya haddii cirra ku tanaasulay oo ku yiri waan ku tanaasulay ama ummadan u tanaasulay horta anagu kuma tanaasulay marnaba ka tanaasulay wayna caruurteedii iyo dumarkayga horteeda ku leyseen إرساس بيرك على جرفتي يا قارنا وعيمك يا ناس بطلة قارنا هاي كل الناس هذا وأنا مقارضون هذه الحين في النداية أنت واحد قدر يا موسى عندك أصلا رئيس هذه على عسوتي ونقنا هنا طبعا مشيستين
waan ognahay inaad sheegaan samaysateen waan ognahay inaad ciidan samaysateen anigu ciidan qaran uma aqaanin laakiin ciidanka sheegaan baa le ciidanka haddii ciidan qaran yahay oo dadkiisa muu laayeen adiga ciidankaad samaysateen iyo awoodda ay isu geyseen iyo diyaargarowga faraha badan aad gasheen rag la socdaan aadku si dhow baan ula socnaa weliba waxaan si kuu sheegaynaa waa la waayi doonaa waanu iska celin doonaa haddii ilahay nafta noo daayo adiga iyo wixii kula socdaba taasuna waa taa intaa waxaan ku daraya waxaan u nacabahay kelmad inaan maqlo imika waxaan u nacabahay qaar intay soo fadhiistaan tv-ga yidhaahdaa nabadda ha la ilaaliyo waxaa la yidhi beri baa geeliisii la dhacay markii geeliisii la dhacay baa la raadiyey colkiioo raadkii geela ku jooga oo daba socda ayaa nin baa wuxuu yidhi roobay nabadeey buu yidhi ninkii geeliisi la dhacay waran buu sitayoo warankii buu ku dhuftay labada keliyood buu isaga saaray waa la qabtay waxa la war ninka maxaad ku dishay wuxuu yidhi wuxuu doonayey markuu leeyahy roobay nabadeey geelaygana in la dhaco geelaygana macnaha sidaa lagu waayo nabadi ka dambayso raadkiisana roobkaasu baabi'iyo ninka shalay carruurtiisii la laayey ee codkiisii la boobay ee jeegaan iyo xaaraan iyo bakti loo samaystay ee cadow u heshiiyey markuu leeyahay nabadda ha la ilaaliyo mid intuu tv-ga soo taago war nabadda darta ugu jirtaa maxay tahay waa arrin aad u khaldan weeye intaa waxaan ku darayaa oo aan ku soo gunaanadayaa oo hadalkayga ku soo koobi lahaa soomaalida waxay ku maamaadaan nin caana ka dhergay waxba kama yaqaano oo berigii hore geela ninka geel jirahayay dadka kale uu ka yar ficnaan jiray oo uu ka yar afku taagi jiray laakiin ninku markuu riyoolo yahay hadduu caana ka dhergo dee kaa geela caanihiisa maalay laba nin caana maalin bay ahaanoo dee isku xoog bay ahaan jireen hadday legdamaan nin diyaargaroobay iyo nin imika u diyaargaroobaya ayaa somaliland jooga waan idin sheegayaa waxa weeye wixii dhacay iyo waxa dambe ee dhici doonaba rag digtoon oo la socdaan si dhow la socda waxaa ku soo koobaya sidaan horeba u sheegay halkan aan uga diraya tacsiya allah u naxariistee axmed yaasiin gabaxadii oo dhintay qaar baa saaka waxay ii sheegayaan xabaashiisii inuu iman doono musabix ninka la yihahdaa kaasaan qalbiga ka yidhi wartolo meel ilahay naxariis looga doonaynin marka xabaashii odayga la keenayo musabixi waa salaamantiin